kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle ahna gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabelle Marwaan Axmed Ciise ayaa ka qayb gashay kulan looga hadlayay arrimaha haybsooca beelaha oo lagu qabtay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle. Kulankan oo soo qaban qaabiyay golaha mideynta beelaha Gorgaarta Hawiye ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socda gobolka Shabeellaha Dhexe iyo labada gole ee dowlad goboleedka Hirshabelle iyo nabadoonnada gobolka Shabeellaha Dhexe, ururka haweenka dhalinyarada. Wareen waxa ka hadlay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka Hirshabelle Abuukar Xasan Cali Maqaney. waxayna dhankooda ka hadlay nabadoonnada ku dhaqan gobolka Shabeellaha Dhexe. ilaahay subxaanahu wa ta'aala kitaabkiisa wuxuu ku leeyahay yaa ayuha naasu dadow, lafdigaas oo naas oo bani aadamka oo dhan loo isticmaalo, kii caddaa iyo kii madooba dhammaantoodba ayaa laga cabiray. dad gaar ah lama hadlina. yaa ayuha naasu dadow innaa khalaqnaakum, annagu waxaan idinka abuurnay min dakarin wa unsaa, lab iyo dhadig. la heli maayo maanta qof ka yimid lab iyo dhadig mid saddexaad ama laba lab iyo laba dhadig qof ka yimid maanugu jira. dhammaanteenba waa simanahay. dhammaan waxaa laga wada yimid min dakarin wa unsaa, lab iyo dhadigaa laga yimid. waa la siman yahay, soo ma jeedin. wajacalnaakum, ilaahay wuxuu leeyahay waxaan idinka yeelnay shucuuban wa qabaa'ila, shucuub iyo qabaa'il ayaan idinka yeelnay. leesh marka sababta shucuub looga dhigay, dadkii waa waaxide, maxaa shucuub iyo qabiil looga dhigay? litacaarafuu, inay is aqoonsataan. qabiil macnihiisu waa taarge. daadii kaa weyneed maaho, daadii kaa weyneed maaho. waxaan rabaa maanta kadib inaan warkaas meel lagu sheegaa iyo meel inaan arkin. annagana waa saxiixaynaa. aniga fiira aan isa sheega, aniga markii isa sheega qabaa'ilka ugu fafa badan aan ka dhashay. baledka markii soo galaa afkaan duuba jiray, gaal jecel aan ka dhashay. waxaan rabaa maanta waxay ka dambeeyeen gacantaydii midigta ee waa shaqlay ay ku jiraan kuwa oo aniga aan isku xaman jirin, aniga aan dhaafaynaa naftaayna aan isku xaman jirin. nimaa askari aan soo dhalay waa qolgaas cunug qoortaas ku keenay. habartaan lama yaqaan wax looga diidi jiray, bal habartaan lama yaqaan bis waa guur looga diidi jiray. waxaasoo dhan maanta waa la soo afjaray. ninka muslimka waxaa shar ugu filan nin walaalkiisa loo xaqiro. marka waxaan rabaa inay raal ahaadaan walaalaheen wixii gaaray calool xumiyay gelin. gabdhaha ugu horeysana waa aroosaynaa, gabdhahooyinana waa nasiihayn, kuwaynana waa siihaynaa insha Allah. walaalo jaraana nahay. galabta saddex walxaataan duugaynaa, waanu ku faraxsannahay. waxaan duugaynaa isla weyni, waa duugnay. kala sarreyn waa duugnay. hadda waxaan rabnaa marka waxaan soo dhawaynaynaa midnimada Gorgaarta beelaha Gorgaarta midnimadooda soo dhawaynaynaa. cadow cabdille gabarow dhaliyo xaawi cadow cabdille la yiraahdo nin xawaad la ah qabo oo Ibraahim Ciise qabo mustaxiil oo ku qaba 7 wiil iyo hal gabar oo haysa. weligayna ma dhihin maxaa u qaad war gaalbo iska qaadanay kan waaba walaalka islaamka maxaan ku sheeganaa waxaad ugu diiday haddana waa niga la raba xigta sidii Maxamed Burgaanta inta u keentay ka jooga gabdhaha aad u golateen gaaladu oo goshiin oo muslimkana u diidaysan ka jooga. runta isna maal jirisaatina maal jiris ka dhaafa. runta ay sheegna walaalaanahay. niman yahow gar waa loo islaan iyo garasho waa yeele, gardaraduna waa ay xun tahay guule suu yiriye. nin walaalkii gaasiray kolley gamashi weeyaane, isna guuli uma soo hoyan ee gacanti waa cayre. waxaanse uga gol leeyahay haddaan idin garwaaqsiiyo, gacal ragaad wadaagtaan asaan dhalasha kaa geynin, godobtiisa kii laasimow sow ku guban maysid. sidoo kale waxaasan dhankiisa ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maareynta iyo masiibooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Cismaan Cabdullaahi Dhowre. dadkii dhacan gaalinka nooho Gorgaarta waa isguursaha. horta midaas waa midaas nimankaan cudbigaysa ma jireen, sancadii aan adduunku way bilaabeen. waxay dhan dadkan wax sameeya annagu wax u naga wata koornaaho ma taqaana waxba kuma darsano. sheekadii marka anagu u dhabagelin takoorkaas yimid qaladkaas u dhacay garawshan ka nahay. waxaan leenahay marka waanta way hartay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaasan dhankiisa ka hadlay xildhibaan Cabdullaahi Cosoble Barre, wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ahna xildhibaan ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle.
waan kaala wareegay 33 beelood oo degan gobolka Shabeellaha Dhexe saxiixii ay saxiixeen in ilmo Gurgaate iyo inta la degan inay saddex galaan guurka oo aad mas'uuliyadeeda ku qaadeen dhaqan iyo siyaasad ku qaadeen anigoo xildhibaanka beesha maxamed Gurgaate ku misalan gobolka Hirshabeelle ahna wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose Hirshabeelle waan guddoomay warqadii maxamed Gurgaate isbaarada guurka looga qaaday ee aad sida uu samada leh uga soo shaqayseen dhaqan iyo siyaasadba waa ugu dambeyn waxa ay dhankeeda ka hadashay kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ahna gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Marwacaan Axmed Ciise waxaan u malaynayaa galabta ma hadli karo waxaan la hadli karin gafkii hore u dhacay la rabaa 100,000 sano ka hor in la saxo Gurgaate waxaan maqli jiray 9 oo la kala qalama leh Gurgaate gabdhihiisa qaar waa la guursanayaa qaarna la guursan maayo hayga harto horta galabta hayga harto gabdhaha Gurgaate waa hal culimada Gurgaate waa hal wiilasha Gurgaate waa hal xoogga Gurgaate waa hal waxaan codsanayaa inay marqaati ka noqdaan walaalaheena kale oo nolol dhashay ee Soomaaliyeed inay marqaati ka noqdaan inay galabta harta taaso